annagoo leenahay hambalyo inay haddana ay meesha kasii wadaan waa mahadsan yihiin kun iyo kow jeer waxaan leenahay hambalyo. bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waa Abubakar Xaaji Maxamuud, waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka guud ee shirkadda weyn ee Durba oo ah kambani weyn oo holding ah oo ay hoos imaadaan kambaniyaal kale. kambaniyada imaado waxaa ka mid ah oo hoos imaada Dhise, waa kambani ka shaqeeyo iibista qalabka dhismaha guud ahaan. qalab walba oo u baahan yahay markii la rabo in guri la dhiso min bilaaw ilaa iyo dhammaad, hadday noqon lahayd maxaan ku yiraahdaa laga bilaabo aas-aaska ilaa iyo dhammaystirka, wax walba oo u baahan yahay qalab dhismo ayaan haynaa, iyo wixii gudihiisa lagu qurxi lahaa oo dhan sida sanitary wearka, qalabka musqulaha loogu talagalay, qalabka biyaha, mutuleelada, albaabada. guud ahaan waxaan ku iibinaa kambanigaas Dhise la yiraahdo oo kamid ah kambaniyada hoos imaado Durba. waxaa kaloo jiro kambani kale oo asagana la yiraahdo Diamond Furniture oo kaas asagana lamida oo hoos imaado Durba. asagana wuxuu iibiyaa qalabka furniture-ka oo loogu talagalay markii guriga la bogo in asagana lagu firaasho oo nooc walba leh, hadday noqoto guryihii deegaanka loogu talagalay oo jiifafkii iyo wixii u baahnay iyo saalootooyinkii, iyo hadday noqdaan xafiisyo u baahan sidoo kale saalootooyin iyo miis xafiisyeed qurux badan. Diamond Furniture ayaa asagana la dhahaa. waxaa kaloo hoos imaado kambani kale oo asagana la yiraahdo Ibika Star oo asagana ka shaqeeyo qalabka dhismaha markii la rabo in la dhiso fududeeyo ay qaataan dadka shaqaalaha intooda badan, oo ah qalabka wax lagu duleeliyo, kuwa wax lagu jaro, oo kambani asagana international ah oo Ibika Star la yiraahdo oo aan sole agency u nahnay. waxaa kaloo asagana kamid ah shaqooyinka ay qabato Durba kambani kale oo asagana la yiraahdo Furdo oo asagana ka shaqeeyo clearance-ga, alaabaha logistikada iyo dekada iyo wixii la quseeyo dhan ka shaqeeyo. ugu dambeyn waxaa kamid ah shirkadda shanaad oo la yiraahdo Danab Electric Solution oo ayadana ka shaqeyso qalabka korontada guryaha la geliyo oo quality sare leh. waxaan kaloo rabaa inaan ka faa'iideysto inaan u hambaliyeeyo bangiga weyn ee IBS bangi sanad guuradiisii 10aad oo laga joogo muddo 10 sano ka hor la soo bilaabay. marka inta laguma soo koobi karo adeegyada ay wadankan ku soo kordhiyeen waqti aad u baahi ugu qabay oo ahayd waqti ay yareed bangiga ka shaqeeyo dalka. oo soo kordhiyay bangigan waxaa kamid ahayd inuu u sahlay ganacsatada Soomaaliyeed oo la'ay meel ay wax ku dirsadaan adeegga loo yaqaano Swift transfer oo ah TT-da oo alaabta adduunka laga soo gadanayo si sahlan ku gaarsiinayso sharciyan adduunka lagu kala shaqeysto. waxaa kamid ah oo kale inay kamid ahayd dadkii ugu horeeyay kaararka baahiyaha loo qabayo dadka safraayo, maadaama aan kaash jeebka lagu wada karin u sahlaya ATM kaarada in lacagaha lagala baxo adduunkan wax looga gato, oo Mastercard aad u fiicnaay oo waliba sahlayay in inta aad ku jirtay transitka meelaha qaar oo transitkooda dheer yahay laundry-yada ku yaalo si free ah oo aqbalaya kaarkaas inaad wax uga isticmaashid ama ugu nasatid. waa bangi weyn oo adeegyo badan loo fududeeyo run ahaantii. tusaale ahaan xataa dekada markii loo baahdo hadda in cashuuraha waxyaabo la bixiyo waa bangi laga heli karo dekada dhexdeeda ka shaqeeyo, shaqadana kuu sahlayo.